madaxweyne farmaajo ka tacsiyay geerida ku timid xildhibaan aadan jamhuuriya qodobkaasina waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheen Yaasiin Cali Axmed Bilooya. madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa tacsiye u diray qoyska ehelada guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha u naxariistay xildhibaan aadan cali xasan jamhuuriya oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa tilmaamay in marxuum aadan cali oo ahaa xogayaha guddiga maaliyadda golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda dalka door wanaagsan oo ka qaatay dib u habeynta hanaanka dhaqaale ee dalka. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan idin la wadaagayaa tacsida tiraayada leh ee ku timid marxuum xildhibaan aadan cali xasan. waxaa lagu xasuusan doonaa doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay dowladnimada, horumarka dalka iyo sida hufnaanta leh ee ugu adeegay shacabkiisa, ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda dalka. ugu dambeyntii mudane maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda dalka ayaa marxuumka eebbe ugu baryay inuu hoygiisa ka yeelo jannatul firdowsa, samri imaana ka siiyo qoyskii iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday. Yaasiin Cali Axmed Loyal, Radio Wadani. wata akhyaarta hawada naga daawanaysa guud ahaan intaas ayaan ku saafmeerinaa warkeed ka daawanayseen Radio Wadani TV. inta ku kulmi doona warkan bidlaacina waxaan idinkaga tegaynaa intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.